Asalaamu calaykum waa muuqaal kale iyo xilli xun. Muuqaal waxaan ka hadli doonaa qodob maanta in badan muddo maskaxdayda ka guuxayay oo islahaa duub laakiinse aan xilli xun go'aansaday. Marka waqtigu waa igu yaryahay aniga laftarkayga waxaan doonayaa marka 3 ilaa 4 daqiiqo inaan kusoo koobo hadduu Alla yiraahdo. Waxaan ka hadlayaa qodobka ah laba awoodood ay dadka dheer yihiin dadka hantiilayaasha ahi oo aad ugu xeel dheer yihiin. Waxaa waaye maanta nin waloo hantiila haddaad eegto masters si u badan yihiin ama mid buu leeyahay ama labadaba uu leeyahay. Awoodda koowaad waxa weeyaan mansabka laftarkiisa, mansabka hantida laftarkeeda. Waxaa jira dad ku dhasha ama waxba yaani ku dhalanay soo tabcaa dhaqaale, laakiin waxaad arkaysaa in ku guulaysto oo khasaare lacagtooda yihiin iyo in lacagtaasi lacag badan usii dhasho. Ninka lacagtaasi lacag badan usii dhalaysaa waxaa weeyaan nin yaqaana qaabka loo maareeyo ama loo kordhiyo dhaqaalahaas ee loo maalgashto. Laakiin ninka aan aqoon waa kaa lacagta khasaaraya ee eber ku soo noqonaya. Marka ninka maanta yaqaana lacagtaadaba sida loo maamulo xataa aanu de shirkada lahayn oo xataa kuba dhalan adiga ka shakhsi ahaan haddaad meel xataa tusaale ahaan kasoo wada shaqaysaan isku mushaar qaadataan adiga mar walba uu kaa nolol horeynaya. Tusaale waxaan doonaya inuu soo qaato ninka la yiraahdo Warren Buffett. Warren Buffett wuxuu ka mid yahay taajira wuxuu ahaa reer qof normal uu ka yimid qoys normal ah, laakiin maanta waxa weeyaan caalamka 10 nin ee ugu taajirsan buu jiraa. I don't know booskiisa, laakiin waana billionaire 100 and above weeyaan haddaan 200 gaadhin. Ninkaasi shirkada male uma shaqeeyaan, shaqaale ma haysto, waxaas male. Kaliya lacagtiisa ayuu maalgashtaa oo u shaqeysaa. Lacagtiisa lacag u shaqeysaa. Uu maanta booska 10 qof ugu taajirsan caalamka ku haystaa. Su'aal kale waxaan soo qaadanay ninka qoray buugga la yiraahdo Richard Burden Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki waa reer Aasiyan ku yimid oo faqiirina, laakiinse wuxuu bartay qaabka lacagta loo maamulo. Maantana waa millionaire 100 milyan haysta oo taajira oo yani dhibaato hantiidaysan. Marka qoladaasi waxay leeyihiin awooddaasi aad ugu xeel dheer yihiin. Waxaa jira qolo kale oo ah iyagu yaqaana qaabka loo maamulo bini'aadamka ama loola tacaamulo. Waxaa jiray laba buug baan akhriyay oo mid ahaan u maray labada buug mid ahaan ku jiro Power of Habits iyo oo qoray ninka la yiraahdo Charles Duhigg iyo buug la yiraahdo How to Win Friends and Influence People. Marka waxaa jira qayb uu Charles Duhigg kaga warramayo caadooyinka shirkadaha inay qaybta ku jirto iyo inay buuggan kale aan ku akhriyay masaxayo. Nin buu wareysanay markaa qoraagu ninkii wareysanay nin CEO buu ahaa. Wuxuu ninkii CEO ku yiri qoraaga anigu shirkadan aan CEO ka ahay waxay qabatay waxay soo saarto waxaa jira dad aniga intaan aqaan 3 libilaab kaliya aqaan, laakiin aniga shay kaliya laygu shaqaaleysiistay ee aan lacagta ka badan iyaga laygu siiyaa waa inaan aqaano kaas iga aqoonta badan leeyahay inta ku xeeran ee la shaqeynaysa ama ka hooseeyana ama ka sareeyana sida loo maamulo aqaana. Shirkaduna haddaanay haysan cid waxaas oo dhan maamusha way fail garoobaysaa. Marka uu ku qasbay iyaguna inay siiyaan dhaqaalaha isaguna kaliya wuxuu ku helayaa waxaas oo lacaga يعني qaabkan dadkan qaabka loo maareeyo buu bartay oo garanaya oo ku xeel dheer yahay. Maantana tusaale waxa ku filan CEO-ga caalam iyo dalka gudihiisa intaba isku daro shirkadaha ragga CEO-ga ka ahi waa rag millionaires masters u gudayn dhibaato dhaqaalaha ma haysato. Kaliya waxaan ku taajirnay waxa saantii ku helaan waa lacagta waa maareynta bini'aadamka. Marka waxaa jira iyaguna qolo kale oo labadaba leh. laba tusaale ku soo qaadanay mid waa Elon Musk midna waxa weeyaan dahabshiil alla cimriga caafimaadka waa u dheereeyay. Wuxuu ka bilaabay intaan anigu xoogaa laga hayn taariikhaha ku maqlay xilliga dagaalka sokeeyay ayuu dadka hantida banaanka looga soo diro dalka dibadiisa looga soo diro guryaha ugu guun jiray maadaama ay soo bixi kareen cid walba cabsanaysay. Xagaas oo hantiga sameeyay uu kobciyo markii dambana marka wuxuu ku guuleystay inuu lacagtiisa kobciyo markii uu shaqaalay shirkadiisa weynaatina wuxuu ku guuleystay sida dalka loo maareeyo ama loo maamulo ay ku guuleysteen way shaqadiisu way guuleysteen haddana labadaba ku guuleysteen maanta halkan iyo mansabkan iyo lacagtan midtoona ma haysteen. Su'aalaha kale waa Elon Musk isaguna waa sidaas la mid ah reer taajirina ka muhiim laakiin wuxuu barto aqoontiisii uu ku darsaday sida loo maamulo lacagta iyo sida loo maamulo bini'aadamka tibaan maanta ku guuleystay millionaire caalamka uu sareeyo ku yahay. So waxaan doonayaa inaad la fahantiin barajiiniya haddaad 20 iyo haddaad 30 iyo haddaad 10 tahay dhowr 10 jir tahay intaba isku day maanta umaynu kamaynu iman mustaqbal reer taajiriina laakiin waxaynu awood u leenahay inaynu barno sida bini'aadamka loola tacaamulo. Haddaba in isku day oo ka faa'iideyso waqtiga aad haysato inaad ku barato sida dadka loola tacaamulo. haddaad barato sida dadka loo tacaamulo kaliya kuma caawin doonto inaad CEO noqoto iyo inaad shirkadaha furato adiga ku maamusho laakiin
ka shakhsiyan bini'aadan ahaan iyo ka shaqaale ahaan. Maanta haddaad noqon mulkiile ama maamule aad noqon, shaqaalaad noqonaysaa. Marka shaqaale ahaan iyo ka bini'aadan ahaanba aad bay kuu caawin doontaa, wax badan kuu tari doontaa. So waxaan rajeynayaa, garan maayo inuu 4 daqiiqo dhaafay, inuu 6 daqiiqo marayo mid toonna. So waxaan rajeynaya inuu ka faa'iideen. So intay ka dambe isku arkayno. Ciao ciao.